ninka u jeedaan ani waa ka magacweynay sax because 5 sano 4 sano ka horeeyay inuu kala waraayna irrelevant waa tahay saab inaan macallin ka soo adimi yahay irrelevant waa tahay inuu kuma taqaano bro aad buu ma santahay maadaama barnaamijkan iga dhigtay qofka soo qayb gali kara magaranaysa marka asxaabtaada oo salaamay macnaha inta daawanaysa ما شاء الله sidoo kale aad ay anaga kaaga mahad celinayna sidoo quruxda badan aad codsigeena nooga aqbashay inaad barnaamijkan aad qayb ka noqotay intaas aan ku talgalay waxaan rabnaa inaan kala ogaano dooqa okay alxamdulillah dhawaadey waxaan islaa kuwa kasi adag waa soo socda sababtoo ah waxaad ka yara bilowday magaranaysa markaan yar fiirsay waxaad ka bilowday cabitaan boorta ama maxaa ka bilowday السلام عليكم وعن صاحبة شرفت له مجاعيجو وأذن وكياله maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin runtii muhiim ah arrintaasi oo ah YouTuberada Soomaalida dagaalkooda miyuu ugu jiraa views iyo faa'iido badan mise heshiiskooda ayuu ugu jiraa views iyo faa'iido badan saaxiibayaal sida aad wada ogtihiin dhamaantiinba shirkadda YouTube ayaa waxay jaanisyo siisay dhalinyaro iyo waliba dadyow kala duwan oo ku nool adduunka daafihiisa dhalinyaradaas jaaniska ka helay shirkadda YouTube waxaa ka mid ah Soomaali fara badan oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa laakiin saaxiibayaal had jeer waxaan la kulanaa amaba aan maqalnaa dagaal ka dhex qarxa YouTuberadaas haddaba su'aashu waxay tahay YouTuberada marka ay isdagaashan yihiin oo ay mid walbaba kan kale muuqaal ka sameynayo miyuu ka helayaa faa'iido iyo views badan mise marka ay heshiyaan oo isku yimaadaan hal muuqaalna wada sameeyaan ay taageero iyo views iyo faa'iido badan ay ka helaan saaxiibayaal su'aashan jawaabteeda ayaad waxaad ka dhex heli doontaan muuqaalkan gudihiisa muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo dagaalkan hadda ugu dambeeya ka dhaxeeya ama maxaa la yiraahdaa is afgaarkan ka dhaxeeya YouTuberka lagu magacaabo Dirisle Abdi iyo waliba Rashka boy oo asagana ah YouTuber iyo fanaan arrintan ayaan rabaa inaan bal ka hadlo kadibna waxaan ka hadlayaa bal heshiiska iyo wada shaqeynta ka dhaxeysa YouTuberada qaar muuqaalkaas oo asagana halkan aan ku soo gudbi doono bal aan ku bilowno muuqaalkan amaba xiisahan ka dhex taagan Dirisle Abdi iyo waliba Rashka boy horta waxaan yar fahansiinaya ma sababta waxaan keento dhamaan fahansiinaya magaranaysa waxa jira fiidiyow oo YouTube-kiisa soo dhigo Rashka boy aniguna ogti waan malaade fiidiyow badan Rashka ma ka bixiyo marka waxaan jeclaystay inaan fiidiyow ka mid ah Rashka bixiyo fiidiyowgaas oo ahaa dhibtay leedahay aanimadu fiidiyowga Rashka ma ka bixiyo كدنا حملنا يا كمون هلين معناها دمونا قنعين فيديوه كدنا سامبادا saaxiibayaal muuqaalka aad ayuu u dheeryahay waxaan isku dayayaa inaan ku soo koobo daqiiqado yar bal aan dhageysano kadib wax dhacay marka waxa dhacday wuxuu yiri assalaamu calaykum waa fiicantaa ayaa filaya assalaamu calaykum biyuul waa fiicantaa ayaa filaya biyuul wax lagu farxo magaranaysa qofku inuu ku weydiiyo caafimaadkaaga intuu wax kala sheegin kadibna wuxuu soo qoray qofka kula hadlaya waa Rashka boy YouTuberka ah taasna waa normal sababtoo waxaan jeclaan lahayn qofku ogaaday la hadlaya haddana wuxuu soo qoray aqoon email hid waa runtii fadlan aan is ixtiraamno taasna waa runtii dhowr mar ayaa afka ila soo gashay weli waa ka aamusanahay afka la soo qoritaankaasina waxa weeye maadaama uu fiidiyowgiisa Rashka bisho magaranaysa haddana macnaha uu sii qorayaa weli muu dhamaan kama dhaqan xumida anigu mana wax ka wada umaleey kaama helin anigu aqoonna iima lihid waa run dantaada gara saaxiib kulli waxa umaleey dantaada aqaano mana intaas soo qoray magarata intaas waa iska normal mana aan moolan karo intaas oo wax qaada dadku waxa isku qori karaan magarata saaxiibayaal sida uu noo sheegayo asagaba intaan waa wax iska caadi ah oo waa wax dadku ay isku dhihi karaan wax weyn ma aha bal arinta iyo inta uu dhibaatada u arkay bal aan dhageysano iyadana wax ay tahay laakiin inta mandidi aan inta aad bal ugu soo jeestay wali buu wadiiday wuxuu yiri dignin ayaa ku siiyay hadaba you don't know why it's going on ha hadaba wuxuu soo qoray inta kuma joojin qof ku digay kuma digin whoa calm down Jamal don't pull out the 9
saaxib yaal ma doonayo inaan soo wada qaato muuqaalka oo dhan waxaan rajeynayaa in dhammaantiinba aad horey u soo daawateen muuqaalkan bal waxaan rabaa oo kaliya inaan isbarbar dhigo marka youtuberada ay heshiiska yihiin iyo marka ay dagaalka yihiin marka ay helaan faa'iidada iyo waliba viewska badan bal iminka sidaad arkaysaan muuqaalkan u Dirisle uu ninkan uga hadlayo waxaa daawatay tiradan aad arkaysaan sidoo kale waxaa ka falceliyay tiradan aad arkaysaan bal aan aragno dhanka Rashka boy asagana sidoo u hadlay maxaa la yiraahdaa iyo barnaamijka arrintan waxa uu ka dhahay bro ceerti lagu siin jiray miyaa laga goost soo bila xabaad waxaan ku soo dhigaa ani magac ani hay ugu raadsanay views brother waxa hadalka ku keenay saaki la ahayd wallahi saaki ahayd qoraala u qoray cabadan bacda al-maghrib ninkii YouTube soo fadhiistay Rashka boy ay soo hanjabay private kula soo hadlay nambarkaaga raadiyay ada direct kula soo raganimo sax adigina waxa laga direct inay ugu soo hadashay laakiin marka qoraala alla YouTube kamerada soo qabta baba taamixi cadeynaysa fuleeya tahay ragmatihid waa cabsanaysa biiq aad tahay bro saaxib yaal Rashka boy intaas kadib waxa uu ina tusay sheekooyinkii dhaxmaray isaga iyo Dirisle bal asagana waxaan rabaa inaan idin tuso muuqaalkiisa waqtiga uu soo dhigay oo kan ah sidaad arkaysaan intaano qofna ay daawatay tiradan maxaa la yiraahdaa kulay sidaad arkaysaan commentskiisa waa ay xiran yihiin dislike iyo like-gana sidoo kale waa sidaad aragtaan bal marka halkaas ayaan rabaa qaybtan hore ee barnaamijka oo ah dagaalka youtuberada inaan ku soo gabagabeeyo bal wax yar waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddana marka youtuberada ay heshiiska yihiin ay wada hadlayaan muuqaalada isla sameynayaan iyo maxaa la yiraahdaa viewska iyo faa'iidada ay ka helaan iyo dadka sida ay uga falceliyaan iyagana bal iyadana waa kan ku bilowna muuqaalkan daawasho wacan intaasaan ku talgalay waxaan rabnaa inaan kala ogaano dooqa okay alxamdulillah dhamaaday waxaan islaa kuwa kasi adag baa soo socda sababtoo ah waxaad ka yara bilowday ma garanaysaa markaan weer fiirsay dee waxaad ka bilowday cabitaan boorta ama maxaa ka bilowday saaxib yaal muhiimadeedu ma aha inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo waxyaabaha looga hadlayay laakiin sidaad arkaysaanba muuqaalkan waxa isku wareysanayay Dirisle Abdi iyo waliba Asad Xaajiyo bal waxaan rabaa inaan idin tuso dadka waqtigaas reactionka ay ka bixiyeen iyo maxaa la yiraahdaa qaabka ay u daawadeen muuqaalkan saaxib yaal sidaad u jeedaan muuqaalkan waxa uu ku jiraa muddo ah hal asbuuc waxaana daawatay 198,000 waxaa la gareysay 24,000 oo qof waxaana comments ka dhiibtay 3,300 oo ruux micnaheedu waxay tahay in dadku ay ka helayaan marka laba youtuber oo waaweyn ay iswareysanayaan ama muuqaalo ay wada sameynayaan mar kale waxaan rabaa muuqaalkan kale bal inaad daawataan asagana bal waxaan idin tusi doonaa qaabka ay dadku u daawadeen iyo reactionka iyo waliba commentska ay dadka ka bixiyeen asagana bro dhawe aad baa ugu mahadsan tahay maadaama barnaamijkan iga dhigtay qof ka soo qayb gali kara ma garanaysaa marka asxaabtaadana uu salaamay macnaha intayna daawanaysaa maasha allah sidoo kaleeto aad ayaan anagana kaaga mahad celinayna sidoo quruxda badan aad codsigeena nooga aqbashay inaad barnaamijkan aad qayb ka noqotid saaxib yaal sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad ka warqabtaan amaba aad ogtihiin sheekada arrintan iyo maxaa la yiraahdaa wax uu ku saabsanaa barnaamijkan muhiimadeedu taas ma aha balse muhiimadeedu waxay tahay inaan aragno dadka ay qaabka uga falceliyeen maxaa la yiraahdaa youtuberadan halkan ku kulmay saaxib yaal muuqaalkan waxa ku jira muddo hal asbuuc ah waxaana daawatay 193,000 waxaana la gareysay 18,000 oo ruux saaxib yaal halkan waxaad ka arki kartaan commentska ay dadka ka bixiyeen muuqaalkan commentskaas oo gaaraya amaba ka badan 2,000 oo ruux oo intooda badan ay taageerayaan arrintan ay sameynayaan youtuberada oo muuqaalada wada sameynayaan saaxib yaal ma doonayo inaan halkan ka sii dheereeyo muuqaalka halkaas ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo anigoo ujeedadeedu ay tahay in youtuberada Soomaalida
tayo ku yeelan karaan inay isgarab istaagaan muuqaaladana ay wada sameeyaan fikradahana isku wada darsadaan taasna ay u faa'iido iyo views badan tahay saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan iyo waqtiga aad ku soo bixiseen halkaas ayaana ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu